السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر بعدا lecture كان أو أنكو برنينو جرافك inequality دا وسيدا لو صبره أو جراف لوجو موجيو inequality دا ليلي دا مركا عربنا إن جراف كموجينو inequality دا جراف كذا وحلو قردونا سيدا متك linear equation تا عمل لو قرجري لكن وحو أجد بنان دونا ميلير qaybtaas hore linear equation ta waxay ahayd hadii lagu siiyo equation kaasoo laga heli karo x iyo y labadaba waxaad u baahan tahay in aad samaysato table core inta aadan graafka samaynin oo aad x ka u qaadato qiimo adiga aad la imaanayso y dana ay soo baxdo oo aad adiga isla egtii lagu siiyo aad ka soo saarato waxaad soo dhigatay qaybtaas sidoo kale hadii lagu siiyo x kaliya uma baahnid table ama y kaliya hadii lagu siiyo wax table ah uma baahnid leenka wuxuu noqon jiray labadan midkood ama inuu noqdo horizontal ama inuu noqdo vertical hadii lagu siiyo x kaliya leenkaagu wuxuu noqon jiray vertical hadii lagu siiyo y kaliya oo the value of y kaliya hadii lagu siiyana leenka straight line ka linear equation ta wuxuu noqon jiray horizontal line ayuu noqon jiray qaybtan oo inequality da ah marka ayadana aan rabno inaan graph ku muujino waxaana la siin karaa inequality wadata laba value oo x iyo y hadii la siiyo ayadoo x iyo y wadato table waa loo baahnaan doonaa hadii la siiyo x kaliya ama y kaliya inequality deena wax table ah looma sameyn doono wixiina la siiyay ayaan si toos graafka ugu sameyn doonaa waxa jirto sidoo kale graafkan inequality da ah leenka marka la qori doono leenka wuxuu noqon doonaa labadan midkood mar wuxuu noqonaa straight line oo sida leenkii linear equation ta ku soo aragteen oo kale marna wuxuu noqonaa leenka isagii oo la jarjaray oo wuxuu noqonaa broken line ayuu noqonaa leenkaaga marka inuu noqon doono straight ama inuu noqon doono broken line waxa ay ku xiran tahay inequality daada inay equal la socoto iyo in aysan equal la socon hadii inequality daada ay la socoto equal greater than oo equal la socoto ama less than oo equal la socoto hadii lagu siiyo leenkaaga straight uu ku noqonaa hadii lagu siiyo greater than kaliya ama less than kaliya hadii lagu siiyo leenkaaga wuxuu noqon doonaa broken line ayuu noqon doonaa sida broken line leenka saas oo kale ayaan ka wadnaa straight line leenka saas u toosan oo kale ayaan ka wadnaa exampleska waa ku arki doontaa waxa kale jirta hadana oo qaybtan ay dheer tahay waxa graph inequality uu yeelan doonaa shaded region gobol la xardhay macnaheedu waxa jiri doonto leenka marka la sameeyo ama straight ha noo noqdo ama broken ha inoo noqdo hoos ayaa loo sameyn doonaa hooskaasi leenka korkiisa above the line in lagu sameeyo ama in lagu sameeyo hooskaasi below the line waxay ku xiran tahay calaamadda ay ku xirnaan doontaa ayadana sidoo kale calaamaddu hadii ay noqoto greater than shaded region wuxuu noqonaa above the line macnaheedu kor ayaa la shanleynaa kor ayaa hoos laga sameynaa hadii calaamaddu ay noqoto less than lineka below the lineka hoostiisa ayaa lagu sameyn doonaa hooska exampleska ayaad ku fahmi doontaan qaybtaasoo dhameystiran insha Allah draw sawir the graph of graafka y is equal to or greater than x y daadu way ka weyn tahay ama way la eg tahay x waa adoo lagu dhahay oo kale y is equal to x lagu dhahay y taasoo kale ayaa laga wadaa haddaba inequality deenu waa laga wada heli karaa labada variable ba x na waa laga heli karaa y na waa laga heli karaa maadaama labadooda laga wada heli karo table waad u baahan tahay in aad samayso table-ka marka waan sameyn doonaa hadii laakiin x kaliya uu nasiin lahaa ama y kaliya uu nasiin lahaa wax table ah looma baahnaan lahayn sida example-ada soo socdo aad ku arki doontaan oo kale then maadaama hadda labadiiba la haysto table la sameynaa marka table-ka the first column x u qaadanayna the second column waxaan u qaadanaynaa y ayaan u qaadanaynaa sembrana waxa la dhihi jiray table marka aad sameynayso the value of x ama value ga x u qaadanayso
adaa la imaanayo waxaana ka soo dooranay from 0 ilaa 12 waay inta loogu isticmaal badan yahay y-da adaa soo saarnaa x marka aad soo doorato y-da waxa ku soo saaranay isla x ayaa ku shaqeynay waxa ku soo baxaya y-da ku noqonaya macnaha waxa x u qaadato ay y-daada noqonayso ayaa laga wadaa x anaga mar waxa u qaadanay 1 x hadaa 1 u qaadano oo booskii x ka ahaa 1 lagu bedesho y-dana 1 ay noqonay booskii x ta ahayd 0 u qaada hadana boosta x ka hadii 0 loo qaato y-dana waxay noqonay 0 hadana booskii x ka hadii loo qaato -1 y-dana waxay noqonaysaa -1 ayay noqonay taasoo macnaheedu yahay the values of x and y labadaba waa isku wada mid ayaa laga wadaa then waxaan u imaanaynaa graafka ayaan sida aan ugu muujin lahayn si aan graaf ugu muujino graafka sempre waxaan ka sameyn jirnay horizontal line oo x axis lagu magacaabi jiray oo this side wuxuu ku ahaa positive this side wuxuu ku ahaa negative ku ahaa iyo vertical axis ama y axis kana upward positive u ahaa downward wuxuu ahaa minus ayuu ahaa nambarada aad ku qoranayso graafkaaga dhexdiisa hadaad rabto waa dooran kartaa oo waxa ku dooran kartaa table-kaaga fiiri x ta qiimaha aad haysato dhan 1 ugu weyn -1 ugu yar waxaad u qaadanaysaa labada nacba 1 bas muhiim ah waxaan kale adaa isaga darsada 2 3 4 adaa ku darsanaayo 2 3 4 dan adaa isaga darsanaayo waa qurxis y-dana 1 ugu weyn -1 ugu yar 1 plus -1 labadan bas muhiim ah waxaan kale adaa isaga darsaday waa qurxis waaye then baraha isku raadi waxa isku raadisaa x 1 plus x ka dhankan uu plus ku yahay x 1 plus waa bartaan y oo 1 plus y-da waa this line 1 plus waa bartaan line kana soo dhaqaaji kana soo dhaqaaji labadooda meesha ay ku wada kulmayaan istalaab saaro ama dhibic ku samayso waa barta koowaad the second ordered pair ayaan sameeynaa x2 waa 0 y-na waa 0 x0 y0 macnaheedu waxa laga wadaa labadoodaba waxay ku yaalaan ama ay dhacayaan at the origin ayay ku yaalaan unuga ama bartamahaas ayadana istalaab ku samayso haye the third ordered pair kan wuxuu yahay x oo -1 iyo y oo -1 x ta dhankan ayay minus ku tahay y-dana dhankan hoose ayay minus ku tahay tanna soo dhaqaaji kanna soo dhaqaaji labadooda marka aad soo dhaqaajiso meesha ay ku wada kulmayaan istalaab ku samayso ama point u samay kadibna waxa soo qaadanaysaa mastarada leen rabta inaad samayso leenkan aad rabta inaad samayso ma straight u noqonaa mise broken u noqonaa waxa ii sheegaya calaamadeeda maadaama greater than ay tahay equal ay la socoto calaamada haday equal la socoto leenka straight u noqonaa haddaysan equal la socon broken u noqonaa leenkan hadda wuxuu noqonaa straight u noqonaa isku xir marka qaybahan saa isugu xir kadib waxa samaysaa kan saan ugu xir hoos keen hay qaybtan ayadana saas dheh waa isku xirtay then waxa ku soo hartay shaded region sida loo shanleynayo ama hooska loogu sameeynayo korma hoos lagu sameeya ma hoosa lagu sameeyna calaamadu waa greater hadii ay greater tahay above the line waa qaybtan kore ayaa la shanleynaa oo loo sameeyna shaded region ka loo sameeyna answerka waa intaas kore intaan hoose ma ahan ayaa laga wada inequality-da ayaan soo qaadanaynaa waxaan ka soo saaranaynaa the value of y ayaan ka soo saaranaynaa inequality-deenu waa sida ay u qoran tahay waan soo qaadanaynaa marka waxaan dhahaynaa meel banaan la tagaynaa waa -2x plus y is less than 1 y haddii aad rabto y-da reeb less than meeshan waxaa loogu yimid 1 -2x kan wareeji wuxuu noqonayaa plus 2x ayuu noqonayaa this means y is equal to 1 plus 2x then isla egtan ayaa ku shaqeynaysaa meel alla meesha aad x ku aragto mar 1 u qaado marna waxa u qaadataa 0 waxaana ku soo kala baxayo labadan value waan tijaabinaynaa x teena mar waxa u qaadanaynaa 1 1ka inoo soo dhig plus dheh 2 booska x ka 1 u qaado 2 times 1 waa 2 2 plus 1 waa 3 3da waa sax marka
marna waxa loo qaadanaa 0 hadii halkaas 0 laga dhigo 2 times 0 waa 0 0 plus 1 1 1 kaasna wuu soo baxay waa sax kadibna waxaan ku muujinaynaa marka sida caadiga ah graafka ayaan toos ugu muujinaynaa si aan graafka ugu muujino waxaan leenahay isku raadi x ka waa this horizontal line x axis ka this side wuxuu ku yahay oo right ka positive dhinaca left wuxuu ku yahay negative ku yahay this vertical line waxa loo yaqaana y axis ka kor wuxuu ku yahay positive hoosna wuxuu ku yahay negative ku yahay baraha laba barood ayaan haysanaa kaliya 2 ordered b ayaan haysanaa ama 2 points pointiga koowaad waa x1 plus ah iyo y3 plus ah u sameey hal bar u sameey ama marta ay ku kulmayaan sameey ordered beerkooda x oo plus ah waa dhankan 1 hadii la dhahana waa bartaan y3 plus hadii la dhahana waa bartaan kana soo dhaqaaji meesha ay ku wada kulmayaan waa bartaas ayaa istilaab loo sameeyna hadaba waa barta koowaad barta labaad waxa lagu dhahay x oo 0 macnaheedu waa at the origin waaye ma la qoraayo marka y oo 1 plus ah y waa kana this line plus na hadii la dhaho waa bartaan ayaa waxay noqonaysaa y 1 plus ah ay noqonaysaa kadibna waa la isku xiraa sida isugu xirayso in ay noqonayso straight ama in ay noqonayso broken noqonayso calaamada ayaa ku sheegayso calaamadaada hadda wax equal ah lama socoto example kii hore equal ayaa la socotay hadda wax equal lama socoto calaamada inequality hadii aysan wax equal ah la soconin leenkeena wuxuu ahaa balantu in laga dhigo broken line in laga dhigo marka waxaan ka dhigi doonaa broken line ayaan ka dhigaynaa anagana waxaan leenahay sida bastarada ayaan kor saaraynaa kadibna leenka waxaan ka dhigaynaa gobolo yar ayaan ka dhigaynaa broken line ayaan ka dhigaynaa saasa u sameeynaa marka ilaa qaybta hoose laga gaarayo marka aan sida u sameeyno waxa inoo soo hartay shaded regionka gobolka la xardhayo marna waa above the line marna waa below the line waxayna ku xiran tahay sida aan hore u soo sheegnay calaamada aad haysato hadii ay greater tahay above the line less than hadii ay tahay below the line calaamadeena hadda waa less than y maadaama less than ay tahay below the line ayaa inoo noqonayo meesha hooska uu ku dhacayo ama meesha aan shaleynayno ama meesha gobolka aan ku sheegnay shaded region kana below the line ayuu noqday example 6 kan hadaad fiirsan wuxuuna dhahay draw sawir the graph of graphka x is greater than minus 1 ayaad haysataa marka la rabo in graph lagu muujiyo inequality hadii lagu siiyo the value of x clear ama y clear hadii lagu siiyo looma baahno wax table ah sida linear equation to oo kala waay maadaama kan hadda x clear uu nasiyay y meesha aysan jirin wax table ah ma sameeyno ka rabno inaan si sameeyno this means x2 in ay la mid tahay minus 1 ay la mid tahay oo kala lawa waa kana graafkii the horizontal line waa x axis kana waa y axis x oo minus 1 ah ayaa la raadinaa x ka dhankan wuxuu ku yahay positive dhankan wuxuu ku yahay negative ku yahay x oo minus 1 waa bartan ay noqonaysaa leenkan marka halkan lagu sameyn doono broken inuu noqonayo iyo inuu straight noqonayo calaamada ku sheegayso equal hadda lama socoto maadaama equal aysan la soconin leenka waxa laga dhigaa broken line wuxuu noqon doonaa vertical line ayaa uu noqon doonaa marka aan sameynayno waxaan u sameynaynaa sida soo socota waa line broken line ah waa kasa marka sida u sameyso x oo minus 1 ah x is greater than minus 1 hadii graph lagu muujiyo sida ay noqonaysaa waxa ku saartay shaded region keeda ku soo haray calaamadu waa greater hadii ay greater tahay waxa la shaleynaa above the line less than haday tahayna below the line line kan broken line hadii la fiiriyo above qaybtana noqon saana noqon dhankana above noqonayso dhankan waxay noqonaysaa below the line oo kala ay noqonaysaa marka dhinacan ayaa waxa lagu sameeynaa hooska ama harka dhankan ayaa lagu sameyn doonaa saasa looga baxay example 7 keena draw sawir the graph of graphka y is greater than 3 ayaa haysataa maadaama y clear lagu siiyay inequality daada uma baahno in aad u sameyso table waad ka marantaa graphka in axis-yadiisa horizontal axis-ka iyo y axis-ka kaliya diyaarso nambarada ku qoro kaliya waxaad u baahan tahay in ilaa iyo 3 ah qorto waxa kale oo ku darta waa iska dheeri waa iska qurxin kaliya this means macnaheedu waxa laga wadaa y is equal to 3 y daad waxay la mid tahay
3 ama 3 ay lamid ayaa laga wadaa. Then si aad u qorto this line maadaama uu yahay y axis, y daada dhanka ay ka tahay balaaska ilaa iyo 3 da ayaa laga qaadanaa. Line-ka waxaa lagu sameyn doonaa barta 3 da ayaa lagu sameyn doonaa. Inay noqonayso broken iyo straightna waxa inoo sheegaya inay equal wadato iyo inaysan equal wadan. Calaamadeen hadda maadaama wax equal aysan wadan, line-keena wuxuu noqon doonaa broken line ayuu noqonaa. Y-na haddii lagu siiyo line-ka wuxuu noqdaa horizontal. X haddii lagu siiyana line-ka wuxuu noqdaa vertical ayaa uu noqdaa. Hadda maadaama y lagu siiyay, line-ka horizontal ayaan ka dhigaynaa. Ilaa iyo geeska kale gaarsii. Qaybtaanna ilaa iyo geeska kale noo gaarsii. Marka aan gaarsiino waxa inoo soo hartay shaded regionka above ama below waxay noqonayso. Calaamadda haddii ay tahay greater tahay above the line ayaa shaded regionka laga dhigaa. Qaybtan kore ayaa shaded regionka inoo noqonayso. Answerka waxa laga wadaa waa waxa line-kan ka sareeyo. Waxa line-kan ka hooseeyo answerka ama jawaabta ma noqonaysa laga wadaa. Exercise-ka wuxuu ku dhahay draw sawir the graph of graph-ka waa 5 su'aalood. Waa 5 su'aalood isku day sida anaga u sameeyno oo kale idinkana ina u soo sameysaan mahadsanidin.